بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. مدحوينا حسن شيخ محمود، مدحوينا جمهورية فدرالك الصومالية، مدحوينا وديغانغا وابهانغا، مدحوينا اسماعيل عمر جيلي، مدحوينا جيبوتي، سبيكركا أقل كسر سنتك، رئيس الوزراء، وزير المعيشة الفنية، مرتضى الشرفك وكيماتي ودنك كينيا وكجرو غفانا براسابك مغالada غاريسا حلبانكا سوماليات نيروبي يوسف حسن حلبانكا مغالada وجير آدن داود حلبان كسجودو بيشا أورامية يبورنتا مرسبت oo waqti badan ka shaqeeyay wadankan ciidamadu kamid ahaa ciidamada amisom madaxweynaha guddoon horta salaanta madaxweyne William Ruto aniga Garissa joogay faasad baan joogay doorashaan ku jirnaa kursiga aan ka baxay waxa loo codeynaa bisha socota insha Allah taariikh 5 marka Garissa joogay kullu waa la socotiin inuu xisbiga anaga aniga madaxweynaha aan qof anaka wadana uu ka soo galo laakiin waxa la yiri amar baa la siiyay waxa la yiri Garissa ka tag amar imo madaxweyne Xasan Sheekh ina madaxweyne Ismaaciil ku sugay ya ra'iisul wasaare marka salaanta ay guddoon sidaan kugu sheegnay marka Nairobi noogu imaatay marka noogu imaatay Washington adii madaxweyne Ismaaciil naka garabaan nahay na tirsada dawladda cusub hadda ka dhalatay Kenya waa dawlad aqoonsan ummadda Soomaalida iyo ummadda muslimiinta maanta waxaad noogu yeerteen inaan xusno karaamayno sharafno afka Soomaaliga لكن نجا جوجية حنوب بحسين صومالي سجوي الصومالي وان كرامينينا وان وناجرينا مدحوين ضدك الصومالي جيبوتي مركا ينوي ماذا نيروبي وعين نهر صومالي سجوي صومالي سجوي معناه وحاول يكون في صومالي أقانين إجان التفسير مركا ما أنت كبعدي أمر بحي إن الصومالي سجوين لديه مدى اللبات مدحوينه وحرمنا إن سيدان ما أنت أرتنا مهاتو وين وعلي مدحوينه إسماعيل ومال قليي ورقح لغي وما أنت نرجوك وذي لماذا يا صومالي لماذا نبرتي ونو موجسي ونو هرسيدي تاريخ لاسنا ميل أيان قرنينا صومالي دا كينيا جوكتو صومالي إثيوبيا جوكتو يما كوكلا ميل جوغان ماشا عن فيرينينو وحاوي جيبوتي صوماليا marka labadiina waxa idin ka baryaa maanta oo aan rabaa inaan idin sheego إنكنا صوماليدا هجامية مدايا قبيل كبحية هذا إنك هذا قعنت إسقفتين وصوماليدا أمد كدكتين تاريخ وين أياك تجيسين وقدام بين وهذا كبر يا سيدي أنا حسين وأن ما تسكوي ما أنا حسنو afka hooya afka Soomaalida oo akademiya loo sameeyay nabadgelyada inaan xalino
luqadana nabadgelyo hadday laheen waxaa ma tarayso madaxweyne xasan annaga garab baan ku nahay annaga kelimaho regionkan iyo allies-ka aan leenahay adigu waad garanaysaa shaqada aad wado garab baan ku nahay adig keli iyo waddankan ma anfacayso madaxweyne xasan u wado waddanka kenya bay anfici waddanka Djibouti bay anfici wadamada Ethiopia iyo Eritrea iyo wadamadan jiiraanka ku dibay anfici adduunka ay anfici marka shaqada hadda ololaha nabadgelyada aad bilowday waa shay adduunka idil waan garab ku nahay marka sidaan u xusayno luqadda nabadgelyadana waa in idana looga shaqeeyo sidaan luqadda oo aan u xusayno waa inaan diintana u xusno diinta inaan xusno waay luqadda iyo diinta ani fikrad ahaan aadan bare diinta ayaan xoog saaraa marka diintana waxaa waa in la xuso oo la wanaajiyo oo kutubka ilaahay la karaameeyo oo kor loo qaado oo musaaqadada la badiyo oo carruurteena igaan luqadda barno qur-aanka kariimkana aan barno sunnada nabigana aan barnay xadiidka sallallahu alayhi wasallam saas ma tahay ani hadda Soomaalida kale way yaqaanaan madaxweyne Ismaaciil ani waxaa lii bartay waxaan isticmaalaa murtida iyo mahmahdan badi iyaan ku badanahay la 15 sano ayaan ahaa xildhibaan ummadda markaan u khudbeeyo aan dhameeyo waxay dhahan maya khudbadii ma dhamaanin waa inaad murti ama mahmah sheegto waad la socoteen igu tiri anaa bilaabay sheekada dheeraad soo garaysiin maanta laakiin ma garayo arrimahaas mar baan arrimo murti iyo mahmah intaan sheegay yaa wax iga raaxay oo iga raaxay marka maanta odayaashii sharafta la fadhiya meeshan iyo prime minister ka fadhiya wasiiradii marka madaxweyne waad mahadsan tahay waan ku imaanay waxaan salaan kaaga wadaa barsaabka Wajeer barsaabka Mandera iyo madax kale waa feesta badi waxay aadeen umra iyo waxay jireen Sacuudi bay jiraan wayna soo salaamay marka salaantii madaxweyne William Ruto na iga gudoon is your best friend is your ally daarnaway taniya markaan joognay Washington madaxweyne Ismaaciil waan kan ku heshiinay inaan viisada ka qaadno visa u dhaxayso Kenya iyo Djibouti bisha January ee la gaaro tiina waan hergelinaynaa midda Soomaaliya waana ka shaqeynaynaa madaxweyne Xasan garab ha loo noqdo fursad ayuu leeyahay Soomaalida jalafaqay ku badan tahay Soomaalida waxa weeye marka hor socoto xeerada inay dib ku celiyaan madaxweynaha hore u socday dib u soo celinina ummadda hamideeyo waddanka ha xoreeyo nabadgelyada soo celiyo ilaahayna aan barino marka waad soo dhaweyseen waadna sharafteen aniga martida ilaahay idin sharfo waddanka naga imaanay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad u mahadsan yahay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya mudane